Dareenka guusha si guud waa halka uu tiigsado qof kasta. Guusha nolosha shakhsiga gaar ahaan waa hadafka qof kasta. Sidaa darteed, marka uu fashil ku dhaco, waxaan dareemaynaa in nolosha ay soo xirantay. Dadka qaar waxay aaminaan in xiriirka jacaylka uu yahay hadafka nolosha, marka uu burburana ay wax walba u dhammaatay. Ma ay karaan in murugada ay ka dhex baxaan. Si haddaba aad uga gudubto murugada xiriirka burburay, website-ka WikiHow ayaa soo gudbinaya talooyin ku aadan siyaabaha looga gudbi karo. Qodobka koowaad waxa uu leeyahay waa inaad fikirka iska yaraysaa. Waxaa laga yaabaa in fikirka inaad ka tirtirto ay tahay halka ugu wanaagsan ee dhaawacaaga aad ku dhayi karto. Waxaa dhici karta in arrintan ay kuu keento natiijo cagsi ah oo sidii aad filaysay ka duwan. Haddii aad isku daydo inaad naftaada ka mamnuucdo inaad ku fikirto, dhibaatada unbaa kugu sii badan doonta. Sidaa darteed, waa inaad naftaada u ogolaato inay ku fikirto, laakiin si kooban. Waa inaad ka joogsato ku fikirka waxyaabaha aan rumoobaynin. Haddii aad isku dayayso inaad la qabsato waayitaanka jacaylkaagii koowaad, markaa waxaad dhexda ka galaysaa afkaar qaldan, sida inaad tidhaahdo mar kale waxba ma jeclaan doono, mar kale farxad ma arki doono. Fikradahaasi oo kale waa inaad iska yarayso si aad uga gudubto marxaladda aad ku jirto. Qodobka saddexaad waxa uu leeyahay xaaladda aad ku sugan tahay xoogga saar. Wixii la soo dhaafay intii aad ku fikiri lahayd, xoogga saar xaaladda aad hadda ku sugan tahay iyo waxyaabaha muhiimka ah ee ku hor yaalla. Ehelkaaga, saaxiibada iyo shaqada. Inkastoo ay jirto inaadan haysan xiriirkii caadifadeed ee aad jeclaan lahayd inaad hesho, waxaa muhiim ah waxyaabaha kale inaad isku mashquuliso. Daryeel naftaada. Marka aadan naftaada daryeelinin, waxaa kugu adkaanaysa inaad si wanaagsan u fikirto. Hurdada ayaa kugu adkaanaysa. Sportska ma ciyaari kartid marka aad jacaylkaaga weyso, laakiin waxaa waajib ah inaad ilaashato aasaasiyaadkaaga nolosha oo naftaada aad daryeesho. Arrintaasi waxay kaa garab siinaysaa inaad sii ahaato qof awood badan, islamarkaana aad ka fogaato fikradda kooban ee noloshaada dhibaatada ku ah. Qodobka shanaad waxa uu tilmaamayaa ka faa'iidayso tijaabooyinka dadka kale. Raadi saaxiib ama qof qaraabo kula ah oo tijaabo noocan oo kale ah ay soo martay, laakiin markii dambe si wanaagsan uga gudbay. Ka kororso waddadii uu dib u kabashada uga sameeyey iyo sidii uu uga gudbay xaaladdan aadka u adag. Qodobka ugu dambeeya ee lixaad ayaa waxa uu qorayaa: waxaad ogaataa in muddo aad murugoon doonto. Tallaabo u qaad sidii aad ku fiicnaan lahayd oo murugada aad kaga bixi lahayd. In jacaylkaaga koowaad aad weyso waa arrin adag inaad iska ilowdo. Habeen iyo maalin kuma iloobi kartid. Waxaad u baahan tahay xoogaa waqti ah iyo samirkaaga.